garoowe wafdi ballaaran oo hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo ka tirsanaa wakiilka Soomaaliya ee EU-da iyo IGAD waxaan uga mahadcelinaynaa safarkan ay noogu yimaadeen. waxaan runtii farxad ahayd inaan maanta ka wada hadalno arrimo badan oo la xiriira horumarka iyo howlaha baaxadda leh ay ka wadaan ururadan heer caalami heer goboleed isugu jira guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland. sidoo kale waxaan aad uga wada hadalnay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka heshiiskii 27 May kadib iyo dhaqangelintiisa iyo dardargelintiisa iyo meelaha ay wax marayaan. waxaa runtii kala war qaadanay arrimaha intay hadda marayaan. waxaana aan rajaynayaa in arrimaha dhiman oo ama dhinaca beesha caalamka ama dhinaca Soomaalidaba in ay sidii loogu talagalay oo u qorshaysnaayeen ay u dhacaan. waa wixii arrimaha ku saabsan runtii is-aqoonad fiican ayaan ka yeelanay. waxaana runtii noo wada muuqday in heshiiskii ilaa hadda sidii loogu talagalay uu ku socdo oo shaqooyinkii ugu horeeyay ee la xiriiray xalinta gudiyada meel fiican u marayo. waxaan rajaynaynaa qodobadii kale oo lagu wada heshiiyay iyo caqabadihii jira oo dhan xalkooda in si midaysan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka wada shaqayn doonaan oo dhow. beesha caalamkaana kaalinta ugu muhiimsan oo laga rajaynayo dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashooyinka inay gacan weyn ka geystaan iyadana runtii inay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan ayay noo muujiyeen. waxaan rajaynayaa dabcan madaxda kale madaxda dowladda federaalka iyo madaxda kalena qaarkoodna way la soo kulmeen qaarkoodna way la kulmi doonaan. waana uga mahadcelinaynaa mar walba doorka ay ka qaateen dhammaan shirarkii hore aan usoo qabanay iyo geedi socodkii ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka oo ah kaalin qayb muhiim ah dib u dhiska dalka Soomaaliya. arrintaasna waan uga bogaadinaynaa. aad baad u mahadsantihiin. soo dhawaada mar labaad. Thank you, President Said Abdullahi Deni and your team for the warm welcome that you've extended to us today. I'm here with the Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission and Head of Amisom, Ambassador Francisco Madeira, the European Union's Deputy Head of Delegation to Somalia, Nicole Miller, and the Intergovernmental Authority on Development's Head of Mission in Somalia, Jamal Ahmed. We're very pleased to be in Garowe today in this AU-EU-IGAD UN group, and we will be visiting other federal member states in the coming week.
We have come, now that the National Consultative Council Conference has concluded and Somali leaders reached an agreement on 27 May outlining implementation modalities for the 17 September 2020 agreement. The 27 May agreement was an outcome of the constructive engagement between the FMS, federal member state leaders, and the federal government that also included consultations with other important political actors. We thanked President Denny for his role in helping achieve this agreement. It is vital that the same spirit of cooperation among Somali leaders continues going forward. We welcome ongoing dialogue and cooperation between the two levels of government and encourage Somali leaders to continue regular meetings in the National Consultative Council format. Our AU, EU, IGAD, UN team discussed with President Said Denny the next steps in implementing the 27 May communique. This included discussions on the constitution of the electoral management bodies at the federal and state levels, the establishment of the committee working on the ghetto reconciliation process, preparations for the holding of elections, including electoral security, and steps being taken to implement the women's 30% quota. We urge that momentum be maintained on all of these key issues. International partners are committed to supporting this consensus-based electoral process. We reiterated the importance of including women and youth in the political processes at the federal and regional levels. In particular, it is a priority that the minimum 30% quota for women's representation be implemented in the elections of both houses. We are confident that with political will from all stakeholders, an inclusive and credible electoral process can be held in Somalia. As part of our exchange with President Denny and members of his cabinet today, we also reviewed key security, economic development, humanitarian, and governance priorities in Puntland. We have been encouraged by the significant progress made towards holding pilot one-person, one-vote local elections in Puntland. We remain committed to working in partnership with the government and people of Puntland to advance participatory democracy in the state. Mr. President, once again, our sincere appreciation for the warm welcome. We look forward to continuing to work together with you and your team as Somalia moves toward the holding of elections based on the 27 May agreement. Thank you, sir.